In subaxa horeeta la qaataa cunno quraac ahaana loo cunaahay waa caado soo jireen ah oo ay dadku leeyihiin deegaan kasta ee ay joogaanba. Cuntadaasi subax hore la cuno amaba quraacda waxa ay waxtar weyn u leedahay caafimaadka jirka, waxa ayna ka hortagtaa dhibaatooyin caafimaad darri oo qofka ku imaanaya haddii uu waqti dheer quraacda qaadan waayo. Maanta waxaan isdul taagaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee ay leedahay in subaxdii qofku uu qaato quraac ku habboon oo u dhiganto isla mar ahaantaana waxtar u leh caafimaadkiisa. Quraacda subaxda horeeta la qaataahi waxa ay waxtar weyn u leedahay caafimaadka wadnaha. Waa marka koowaade subaxa horeeto maadada loo yaqaano insulinta waa xilliga jirku uu ka jawaabi og yahay, sidaasi daraaddeed in subaxa horeeto uu qofka qaataahay cunto caafimaad leh oo isku dheelitiran isla mar ahaantaana ay ku badan tahay maadada fiber-ka oo loo baahan yahay in ay subaxa horeeto quraacdaada ay ku jirto 25 garam. Waxa ay waxtar weyn u leedahay caafimaadka wadnahaada, sababtuna waxa ay tahay in ay hoos u dhigayso xaddiga maadada loo yaqaano dufanka dhiigga ku jirta ama cholesterol-ka, taasi oo khatar ku ah caafimaadka wadnaha iyo xididdada dhiigga. Sidoo kaleeto subaxa horeeto oo aad quraac qaadatahay waxa ay waxtar weyn u leedahay yareynta khatarta uu qofku ugu jiro cudurka macaanka amaba diabetic mellitus noociisa labaad. Baaritaano caafimaad oo la sameeyay ee cilmi baarisyo ayaa waxa ay muujinayaan in dadka aanan subaxa horeeta quraacanin isla mar ahaantaana quraacda waaya muddo 5 ilaa 4 maalmood isbuuci ah in ay 55% kordhaydo khatarta ay ugu jiraan in ay qaadaan cudurka macaanka noociisa labaad diabetic mellitus type 2. Inaad subaxda horeeta qaadatahay quraac sidoo kaleeto waxa ay wax weyn u taraysaa xusuusta iyo diirad saaridda. Si gooni ahna ilmaha yaryar waa inay helaan cunno caafimaad leh xilliga quraacdii. Waxaana la arkay in ilmaha yari haddii aysan quraacanin oo hoos u dhaco fahamkooda iyo diirad saaridda xilliga waxbarashada lagu guda jiro. Cilmi baarisyo la sameeyay ayaa waxa ay tibaaxayaan ilmaha yar ee aan subaxdii qaadan quraac ku filan amaba aanan ahayn quraac caafimaad qabta in uu hoos u dhaco heerka fahamkooda xilliga ay galaasyada ama fasallada ku jiraan. Sidoo kale waxaa jiro dad qaba cudurka Soomaalidu ay u taqaano gaaska oo ah calaamado ka yimaada cudurro dhowr ah, kuwaasi oo lala xiriiriyay qaarkood baahida amaba in qofku uusan waqtiyo habboon uusan qofku cunto qaadanin amaba uu waqtiyada cunnada uu qaadanayo ay noqdaan kuwa isdhaaf ah, taasi oo soo dedejinaysa in qofku uu dareemo calaamadaha xaaladaasi Soomaalida u taqaano gaaska oo aan si gooni ah uga samayn doono muuqaal ku habboon markeeda. Aan isku soo wada duubnay faa'iido weyn oo caafimaad ayay u leedahay qof kasta in uu subaxa horeeta qaato cunno caafimaad leh si jirkiisa iyo maskaxdiisuba ay ugu shaqeeyaan si wanaagsan.